بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وفارح محمد حيران أو كما قال فارح لمانه هل كان ساكن عن كدوين فرين مباخ نبادات قصة عن كل هذا دون الرياض الصومالية ملول بيجوغان إن كانوا قلنا كليب كي جابان عرب المسلمين تدمان ملول بيجوغان إلى هذا رمضان كريم قصة أمة الصومالية إلهي سبحانه وتعالى هي نقديو dadka ka faa'iideysto bishan qeyrkeeda iyo cibaadadeeda fariinteeda dabcan maanta waxay qusaysaa dhinacyo kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed iyo culumidiinka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo dhammaan iyo qof walba oo ay dhammaan qof walba oo jecel nabadda Soomaaliyeed sida wada ogsoonahay magaalada Muqdisho maalimii ugu dambeeyay waxa ka taagneed xaalad coladeed ama xaalad dabcan ifaal colaad muujinaysa dad baa gurigooda ka qaxay waxaan rabaa markaa inaan fariinteeda ku xoojiyo dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay dadka ugu badan ee wadanka lagu tiriyo hadduu dib dhacaan ama musiibo ilaahay noo keenay ee maanta dadka ugu horeeya saameynayso ama dadka saameynta ugu badan ay ku yeelanayso maadaama kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed si waxay taabanaysaa dhalinyaro ahaan khaasatan marka laga hadlayo nabadda ama nabadgelyada waddankeena maanta ifaaliiso ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barayno san ka dhicin laakiin muuqato inay ifaal colaad ka jirto dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa rabaa khaasatan in la hadlo markuu horeyso dhalinyarada reer Muqdisho maanta halka meesha colaadda ay ka jirto ama laga filan karo inay ka bilaabato ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaa inay ka dhicin ku nool waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed inaan iraahdo reer Muqdisho khaasatan inay u soo baxaan nabadda u hadlaan ay banaanka u soo baxaan iraahdaan ayaga oo muujinaya shucuurtooda waliba khaasatan ayaga oo dareensiinaya inaysan la jirin koox mucaarad ama muxaafad cidi ahaataba laakiin muhiimadda ay raadinayaan ay tahay nabadda mar haddii imaato nabadgelyo xumo dabcan meel walba bulshada ka mid ah way saameynaysaa laakiin markaan ka fiirno xagasha dhalinyarada dadka maanta lagu horeynayo ama ay adeegsanayaan labada qolaba dadka u badan ee ciidanka ku jira waa dhalinyaro waxaan leeyahay dhalinyaro reer Muqdisho u soo baxa anoo ka faa'iideysan fursaddan waxaan leeyahay dhalinyaradii shalay toole u soo baxday waxaan leeyahay hambalyo waan ku faraxsanahay in maanta aan arko dhalinyarada iga turjumaya dareenka maanta igu jiro ama waxa aan dareemayo inay banaanka soo baxaan haddii maanta aan nabadda inaga aan u hadlin dabcan waxa dhici doon dad u hadlo colaadda inay soo baxaan taa waxay ku saabsantaa fariinta dhalinyarada Muqdisho haddii aan dhalinyarada kale ee ku nool gobollada Soomaaliya maantay wad caasimadda qalbigii wadankeena ayay maanta wax ka jira runtii marka laga hadlo dhalinyarada gobollada joogto ee maanta aysan guriyahooda joogo ee nabad ku soo kacay nabad ku tusay san ciidan dul fadhin waxaan leeyahay idinka ka qayb qaata inaad maanta nabadda u helisaan waxaad uga qayb qaadan kartaa banaanka soo bixi kartaan mudaharaadyo nabadoona dhigi kartaan waxaad dhihi kartaan ma doonayno maanta in wadankeena colaad ka dhacdo shalay toole haddii ay maanta waxaan naga aan sibxanay burburkii dawladda markay dib loo noqday maanta inaga oo xay ayaa taagan inaga wax barna ayaa taagan ma doonayno wadankeena in colaad dhacdo ma doonayno maanta in dadka jiilkeena dambe ayna eedeeyaan ayna dhaliilayaan ay yiraahdaan adinka wadanka xilliga jooga adinka inaga burburiye maanta hadaan ha is oranin awood maliya kula hadla mucaarad muxaafad aan kula halkaasna iska dhig nabadgelyo xumo markay imaato ama nabaddu markay meesha ka baxdo cid walba ay saameynaysaa dadka ugu horeeya saameynaysa waa inaga banaanka soo bixi karnaa waan hadli karnaa waxaan u sheegi karnaa dadka mucaaradka muxaafadka ciidamada isku urursana inaysan anaga namunay maanta 2020 ku jira in wadankan colaad ka dhacdo taa waa mid dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha iyo daafaha caalamka joogo waxaan leeyahay walaalayaal social media waxyaabaha aad ku qoraysay dad bay jibinaa waxyaabaha maanta ka fiirsan la'aanta ee colaadda muujinayo ee maanta aad maanta qof waliba oo Soomaaliyeed ku social media furo meesha in kulmiso qaasada Facebook waad arkaysaa qof dhalinyaraha oo guri barwaaqo joogo oo wadan barwaaqo joogo wuxuu rabo soo qora xaqiiqdu waxay tahay wadankeena burburo qarankeena burburo ilaahay ma keenay meesha aad joogtid waxaad ku joogaysaa adoo mukulaala joogaysaa hadduu maanta wadankaada burburo cid bil aadan ay ku sharfaysa ama ku risanti karanaysa ma jirto sharaf iyo ciis waxa ku leedahay wadan kale aad kula joogi kartaa waxa weeyaan inaad adiga aad wadankaadi oo barwaaqo ahaado wadankaada u xur ahaado oo wadankaada u ahaado wadan qalaas uusan ka jirin haddii aad leedahay guriga nabada u qorto shaqada nabada ku hayso barashada nabada ku soo wadan kale aad joogtid waxaad ogaataa wadankaada ayaa lagu ixtiraamaa mar walba waxaad iga codsanaa walaalayaal haddii aad social media ku soo qoraysaan
positive ka kusoo qora haddii aad kusoo qoraysaan wax nabadda ugu heeliya nabadda uga hadla maanta nabadda haddaan anaga u hadlin cid kalena hadlaysa male taa waa mid dhalinyarada kale ee raba maanta ciidanka ku jirta qaarka ciidanka dabcan qarsoon kuwa aan qarsooneyn maalmo ugu dambeeyay social media waxaan arkay ayagoo dhahay halkaasaan joognaa waa aagaas kuwan ka soo saar rabnaa wixii laga helaa leeyahay taa inama qabato markay imaato nabadgelyo xumo wadankeena cid ay saameynayso inaga waxaan oran lahaa haddaad ciidan ku jirtid mid qarsoon iyo mid muuqda haddaad taaba wadanka maanta inaga ayuu noo baahan yahay dadkaani waa dadkii dabcan maanta ama siyaasadaas isku haystaan laga yaabaa inay caruurtooda bannaanka joogaan laakiin maanta dadka waxbarashada u baahan waa inaga caafimaadka u baahan waa inaga dadka shaqada u baahan waa inaga dadka maanta wax kasta u baahan ee wadankaasi maanta inay badbaadiyaan raban inaga ayay noqonaysaa taa waa mid hooyooyinka Soomaaliyeed bannaanka u soo baxaano ma ina qabato ina maanta aragno hooyo Soomaaliyeed ee caruurta afar laba gacmood ku sida bannaanka baxayso ma ina qabato caruur hooyooyin Soomaaliyeed bannaanka daas hadda ay qadaba qabasho leedahay xaqiiqduna waxay tahay nabadda waa loo hadlaa cid u hadasho maalintii ay waysane meesha ma sii jirayso haddii aan ka aamusno guryahayna aynu galno oo maanta dhalinyarada tahay bari aniga wax naga weydiina ama waxa soo qor ama soo qor ama hadlin ama ka qayb qaado bari aniga wax naga weydiina dhalinyarada kale ee gobol jooga degmooyinka Muqdisho qaybaheeda kala duwan ee iyaga nafsadooda social media dhamaantood ma wada oran karo laakiin qaarkood social media wax ku soo qoray eedaha aagheebaa la qabsaday ciidamada la isku urursaday iyo kuwa ciidan ku jira ee taliyaasha ee maanta dhahayo anigu waxaan ku beeray qol hebel aan ku beeray taayna ma qabato halka wax aan ka simanaa waxa weeyaan wax kasta ahaato qaraar ahaato yani dacarta uu qarar waxyaabaha qaraarka watuna nabadgelyada xumo ee wadanka ka dhacdiyaan maanta waxna ku doorsan wax aan ku doorsanay ma dadka maanta way yimideen way baxaan laakiin cid harayso waa inaga iyo jiilka inaga dambeeyo maanta waxaan rabaa in uga faa'iideysto hooyinka Soomaaliyeed maanta banaan ku soo baxaan mariya cad soo qaataan sida shalay dhalinyarada kulmis iyo dhalinyarada reer Muqdisho ay sameynayaan iraada ina maanta aynu sameeyno culimada Soomaaliyeed culimada doorkoodii meeshuu ka maqan yahay runtii qaar hadla way jiraan laakiin reality saacada wax weyn doorkii aan ka rabnay maanta ma muuqayo ganacsatada Soomaaliyeed ee maanta baqaarada iyo wax kule dukaamada waaweyn kule magaalada Muqdisho khaasatan bakaara ay oranay kuma soo gaara dhibka hadduu maanta faafo meel waliba uu gaara taariikh dibadda ugu noqono wadankeena dib aan ugu noqono xilligii dawladda Maxamed Saad Barre burburiyay burburka Muqdisho ka bilowday laakiin cid filanaysa ma leeyno gobolada tagaa laakiin finally gobolada uu gaaray degmooyinka qaar hata cid ka filanaysa ma uu gaari doona laakiin intaas oo dhan waxay ka bilowday hal meel ka bilowday haddii aan maanta aan ka hortagin kan maanta qoriga wato aan u sheegin wadanka aska burin waxaan way dhamaanaa maalmo yar oo kooban khilaafka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ugu dareenka ee maanta xambaarsan ama wadanka jooga ama gudihiisa ama banaanka jooga nabadda aan u hadano aynu ku dhahno maanta mana deeqdo colaado maran colaado waa ka soo tagay waxa xaqiiqa oo runta ah maanta aan la gambi kara hadii maanta colaad meesha ka dhaco maskaxda caadiga meesha uu ka tagaysa dhalinyarada leeyada aadaysa dhalinyarada dalxiiska aadaysa waxa soo dhan waa wax meesha wax dabar go'an inta waxaas aynu ku dhicin waxbarashada aanan aadin ganacsiga aan si xor ku furanin maanta ay noqono dadka messengerada nabadda ka hadlo baaqayga waxaan ku xoojinaa waxay tahay erga dhalinyarada uu soo celinaa maanta haddii wax dhacaan ilaahay ma keeno subxaanahu wa ta'aala ka magan gala rabadaanka fadligiisa haddii maanta wax dhacaan qofka maanta la beegsana waa inaga dib marka taariikhda u fiirino dhalinyaro ayaa wax xurinaysa kuwa la beegsana waa dhalinyarahan ayaga wax xurun ayaa la dhigi jiray maanta inaan noqono messengerro maanta inaan noqono odayaal nabadoono isku beddelno anu hadaan nabadda wadankeena aan wadan aad u maasantiin adiga muuqaalkayga duwan waxaan rajaynayaa dabcan message-kan gaari doono meelo kala duwan qof wala message-kan gaaran waxaan rajaynayaa inuu la wadaago asxaabtiisa kale aad u maasanta